Bismillah. Maanta waxaan jeclahay inaan aan ka hadlo erey bixinta ku saabsan artificial intelligence ama AI wax loo yaqaan. Magacan waa mid teknolojiyada cusub maanta ku xiran oo adeegsigiisana badan. Hase yeeshee markii la Soomaaliyeeyey waxaa muuqata in si aan habbooneyn loo adeegsado inta badan oo 3 nooc baan dhihi karnaa oo ah aqli macmal ah, kasmo macmal ah, garaad macmal ah. 3daan qaab ahaan runtii ma waafaqsana qaabka loo sameeyo erey bixinada loo sameeyo. Sababta sideedaba erey bixinada markii la sameynayo waxaa jiray xeer lagu saleeyo erey bixinta sidii loo sameyn lahaa. Waxaana ugu muhiimsan 2 inkastoo 3 iyo 4 2 ugu muhiimsan. 1 erey shisheeye oo loo bixinayo erey Soomaaliyeed kaasoo micno hore lahaa ugu kordhinaya erey micno cilmiyeed ah. Tusaale angal af Ingiriisi waxaa loo bixiyey xagal oo Soomaalidu wada taqaana xagasha xagla laaban xoolo kuma yimaadaan waa jilibka hoostiisii oo lugta markaad lasoo laabo qaab angal shay lagu yiraahdo yeelanayo. Ama ma ahee sel waxaa loo bixiyey unug oo micno kala lahaa micno la ballaariyey. Waa mid. Qaybta 2 iyadana markii la waayo erey Ingiriisi ama cilmiyeed haddii loo waayo erey Soomaali u dhigma waxaa la sameeyaa 2 ereyaa laisku dara. 2daas erey oo 2 micno kala leh markii laisku darana micno 3aad yeelanayo cilmiyeysan. Waxaa ka mid ah division Ingiriisi. Soomaaliga wuxuu noqday dheef shiid 2 erey dheef oo la shiid waa tahay. Ama ma ahee qamar sanaaci ama artificial satellite. Qamar sanaaci waxaa loo bixiyey dayax gacmeed. Dayax iyo gacan waa 2 shay aan islahayn. Waxaanay soo saareen shay oo maanta qalab maanta la adeegsado. Marka haddii aan u soo noqonno ereyadii hore oo ahaayeen aqliga ama aqli macmal ah, qaabkaa wuxuu yahay qaab weereed uu samaysan yahay oo waa weer. Haddii aan ku darno aqli baa macmal ah waa weer kaamil ah. Haddii bacda aan ka saarno waxay noqonaya weer gaaban. Taasna waxay ka hor imaanaysaa inaan weer laga dhigin markii erey bixina la sameynayo sida aan hore u soo sheegnay ayaa habboon in laga dhigo. taas waa midda 2. waxaa jira ereyga macmal waa carabi. macmalna haddaan adeegsano waxaan ku khasbannahay aqli macmal ah in lagu daro. Marka 2 ciladood keenay midoo uu carabi haddii la helayo Soomaali carabiga in laga maarmi karo. Xeerarka erey bixinada ayaa ka mid ahaa. Marka waxaaba jira gacmeed ereyga la yidhaahdo haddii artificial aan rabno inaan fasirno ama erey u bixino waa gacmeed waay oo hore loo adeegsaday u hirgelay oo ah dayax gacmeed. Marka waxaa
fiican in maaragtay meeshaas la geliyay gacmeed. tan saddexaad aqli macmal ah ama kasmo macmal ah ama garaad macmal ah. waxaa fiican saddexdaas aqli kasmo iyo garaadka aqliga waa carabi haddii la helayo soomaali waa garaad kasmana iyo garaad abuu garaadki kasii weyn yahay wax kasaya iyo caqliga iyo wax maaragtay adeegsanay. marka isku soo duub waxay noqonaysaa garaad gacmeed. markaa saasaan leenahay waxaan buuxinaynaa shuruudihii erey bixinta. labo ereyadii ama ereygii wuxuu noqonayaa isagoo dhan soomaali gudbinayana micnihii oo dhan sidii la rabay. wabilaahi towfiiq.